أنا مدة سأقول عادي مركروبي آلي أنا طبعا مركز حسن طب أو إنه طبعا اللي قاعدوا يرجع حسن طب إذا نافع لهاي ودي الشغلة كميت هاي ولهاي هويدي وساوعي جودة إنها شقة استويدي تنتهي ولها. waxaa saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada qabsaday muuqaal ay soo duubtay gabar Soomaaliyeed oo caan ka ah baraha bulshada Soomaalida aad ku isticmaasho sida Facebook iyo YouTube waxayna aad uga murugaysneed oo ka hadlaysay dhacdooyin iyo tacaddi xun oo kula kaceen ninkeeda oo ah Catoosh Yare iyo Xasan Toob oo ah milkiilaha baraha bulshada YouTube-ka ay ka shaqayn jirtay Durdur Media waxayna sheegtay in lagu bahdilay kadib markii laga duubay muuqaal anshaxeeda wax u dhimaya waxaana sheegtay in Xasan Toob uu ka duubay muuqaal anshaxuma waxaana muuqaalkaasi markii ay dhawaan joogtay magaalada Nairobi oo kaga duubay iyadoo ku dabaalanaysa meel barkada oo muuqaalka uu ka duubay Xasan Toob ayay sheegtay inay ka soo gaadhay fadeexad iyo aflagaado ka soo gaadhay bulshada dhexdeeda Soomaaliyeed maslax ayaa in muddo ka hawlgali jirtay Durdur Media ayaa sheegtay inay ka tagtay kadib markii ay u adkeysan weyday dhibka iyo tacaddiga lagu hayo habeen iyo maalin sidoo kalena laga duubay muuqaal wax u dhimaya sharafteeda maslax ayaa sheegtay in sidoo kale tacaddiga u dheer tahay lacag la'aan sidoo kale aan ku filan waxayna sheegtay lacagta la siin jiray ay ahayd mid aad u yar sidoo kalena shaqadan ay u haysay hooyada darteed maadaama hooyada danyar ay ahayd oo aysan waxba haysan markaasna ay ku caawin jirtay lacagtaasi waxay sheegtay in Xasan Toob uu ku shaqaysan jiray sidoo kalena uu dantiisa ku wadan jiray guud ahaan bulshada Soomaaliyeed ee muuqaalkan daawatay ayaa aad uga falceliyay iyagoo sheegay in wax laga xumaado ay tahay arrinkani muuqaalkan ayaa baraha bulshada ay soo dhigtay sidoo kalena dhaleeco weyn u jeediyay Xasan Toob waxayna sheegtay inay in badan u adkeysanaysay arrimaha iyo dhibaatooyinka murugada badan laakiinse ay hadda u adkeysan weyday maadaama tacaddiga lagu hayo uu noqday mid joogto ah aniga waxaan shaqadan u galay ayay tiri maslax oo hadlaysay hooyaday darteed inay ku noolaato nolol fiican balse shaqada aad aragtaan iyo dhibka inta la eeg ayaa haddana waxaan qaadanayay lacag aad u yar dhanka kale hooyadeed ayaa dhinaceeda fadhiday inta uu socday muuqaalka ayaa kaga hadlaysay tacaddiga iyo dhibta loo geysan jiray isla markaana u geysan jiray Xasan Toob hooyadeed waxaa la arkayay wejigeeda laga muuqanayay murugo aad u badan sidoo kale duruuf aad u weyn ee ka muuqato dhacdadan ayaa saacadihii u dambeysay baraha bulshada aad looga hadalhayay iyadoo bulshada Soomaaliyeed ay yaab iyo amaka ku noqotay sida uu maskaxda uga haystay Xasan Toob maslaxa iyo ninkeeda dhanka kale Catoosh Yare oo ah sayga ama ninka maslaxo oo qudhiisa kamid ah dad qofka muuqaalada la soo gudbiya ama la duuba kama uusan hadlin arrintan maanta ay maslaxa soo bandhigtay ayna sheegtay in ninkeeda iyo Catoosh Yare ay kala kulmaan bahdilaad iyo tacaddi joogto sidoo kale iyo muuqaalo sharaftooda wax uga dhimaya laga duubo Xasan Toob ayay sheegtay kuna eedeysay oo ah agaasimaha Durdur Media inuu kula kaco tacaddi iyo waliba falal anshaxa ka baxsan bini'aadanimo maaha markii uu horeysay oo maslaxa sidan oo kale ay u soo duubto muuqaal ay kaga cabanayso Durdur Media kor hore ayay ahayd markii ay muuqaal soo duubtay kaasoo ay kaga hadlayso kagana cabanayso ninkeeda Catoosh Yare ayna sheegtay inuu raali kaga yahay bahdilaada iyo tacaddiga lagu hayo balse arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli dhawaan maslaxa iyo Catoosh Yare ay muuqaalo iyo fiidiyoyo badan ku duubeen magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya waxayna sheegtay in shaqada ay hadda ka tagtay sababtoo ah shaqada waxay noqotay mid aad u xun iyadoona markasta aan diido waxa dhaqan xumada laga duubayo waxa lagu hanjabi jiray inaan iskaga tago Durdur Media hadii kale aan duubo dhanka kale maslaxa hooyadeeda ayaa sheegtay in gabadheeda si dhaqan xumo ah loola dhaqmi jiray intay Durdur Media la shaqeynaysay lagana faa'iideystay daruufta ay ku nool yihiin iyadoona sheegtay in shaqada ay gabadheedu haysay inay noqotay mid bahdilaada waxayna ka codsatay in bulshada Soomaaliyeed inay gabadheeda xoog lagu haysay laguna danaysanayay markaana ay ka daayaan inay caayaan iyagoona sheegay in saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu fadeexaysanayay waxayna ka codsatay ummadda Soomaaliyeed inay garab galaan isla markaana gabadheeda ay taageeraan
أنا مدرسة أول عادي مركي روبي آلي أنا طبعاً مركز حسن طب أو إنه دلال اللي قاعدوا يركع يرجع حسن طب إذا نافع لهاي ودي الشقة كميت هاي ولا هاي هويدي وصاوعي جود عادي أنا شقة استويدي دنت هاي ولا هاي. السلام عليكم سماعون محمد مال بأجتي واني سلامة هل كان معلومات وقولي هوي كنوش هاي محلاي وحنج على استحال جرتو أنا يصابن إيسا قرب إيسيسين شقة هاي وحين قطي شقة إسكحن أو سكوت على سنة أو بحي للربع سمال وهاي دادي ديدنا أو هاي شقة وعاي شقة كمتة دا قبلين go out هايو أنا مدرسة أول عادي مركي نيروبي آلي أنا طبعاً مركز حسن طب أو إنه دلال اللي قاعدوا يرجع حسن طب إذا نافع لهاي ودي الشقة كميت هاي ولا هاي هويدي وصاوعي جود عادي أنا شقة استويدي دنت هاي ولا هاي هويدي اللي صاعش أنا وركت واقعتي وحي سمالي دواسني يعني هلاهسني إنه جرائهات عطوش نرالي وكأها إني بهدلو marka dawaal dhahay oo biyaha gal dhahay woodiida asna biya inoo oo ismacleynay halahaas jaraan dhahay moona soo jirin oo ku soo dhaxday awlaadiisa oo ka arka insha Allah awlaad uu qaba gabdho uu qaba xintoob gabdhana way la dhashteen ishii Ilaahay wuu soo saari doonaa xayisiin walba asmeenayn wax ku shilin oo isii malahan waa cadow waa xaasid maxal dhahay xaqiiqo cunay hooyadii waatana iska maskiina bushkaana iskaga nooshahay bishii waxa ku shaqeyn jiray $100 bis $100 ani hataa ku shilay igama soo hareenin waalidka $80 siinaa $20 saar aniga ka sacaano oo gadanay xasan toog baata ayareen oo ii geystay Ilaahiya ka weyn hooyadii waatana waxa ani maxal dhahay wax walba waxa u sameynaa hooyadii darteeda soo familkayga maxal dhahay ay ilmaheena waxay cunaan ee u helaan wax walba maanta adduunka qaali oo noqday anina waa awoodi waayay intaas ka badan haddana shaqadii maxaa la $100 ay hadda bahdilaadaas ay bilaabeen waa iskaga soo baxay oo waa ka soo dhamaaday shaqadiina marbiyaan dhahay sidaas aaga soo dhamaaday shaqada hooyadeena waa tanaada saxaabta soo dhawaanay waxay gabadhayda aflagaadada gudaha bulshada laga wareejinayo mas'uul ka socoto إلى واحد رالك أي وحاواي لنا كنت دنيسناي لنا كشقيسناي وحي تقانم الله مالك بحيس الله انت صحي وحي وسميني سما ولا رها أي ما انت وحي هذا بحي وباهين ذو أوده لكن شقدي وحي نختمت بهالدلادة وحن كعصنا يا أمد الصوماليات وأفلقات دينيس وحول بك سمينيس وديس سان وكم وديس أفلقات ديني إيجا جوجيان aan ka codsanayaa yaa danta iyo daruufta liskuma naco gabadhayda waxaan iiga codsanayaa inaad nicin oo soo dhawaysiin aan idinka codsanayaa xasan toob gabadhayda waa ku danaysti waa ku hormari muuqaal walba ay raalli ka aanas iiga duubi waxay raalli ka aanas iiga duubi Ilaahay waxaan ka baryaa hortiisa in iska helo hortiisa iska helo umuday الصحابي قبل دوا وجدين تي ظروف تمام هاي سطو ووجدين خرتيس اسكالا حسن طب قبل يدبلو خال والبمال والبودم والبس يجي وتلا براجياس يجي لي إلهي حق على بري حسن طب خرتيس اسكالا